السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يالكو سو دوادا كلانتي كلا oo xiisa xambaarsan waana barnaamijkii ila qosol oo maanta ay marti igu yihiin igula joogan dhalinyaro aad iyo aad idinka qoslin doonta nin walba waxaan weydiinayaa hal su'aal ah su'aashaas oo ah nin walba wixii dunidan ugu qosolka badnaa ee soo maray waxaana idinku dambaysiin doonaa tayda oo ah aan u malaynayo inay noqon doonto tan ugu xiisaha badan waxaan ku horeynayaa ninka la yiraahdo Cabdiraabi Ugaaska oo aan dhahayo bal qisadii kuugu qosolka badnayd iiga sheekay inta aad dunida joogtay ee noolayd kulli qisooyin badan baa jiray laakiin hal mid aan ka codsanayo inuu iiga sheekeeyo ya Cabdiraabi ku soo dhaw barnaamijka barnaamijka horta aad baan ugu dhawahay hadii maanta qiso la sheego waxyaabo badan waxa jirta oo igu qosol badnaayeen laakiin mid igu qosol badnaa waxay tahay maalin baa aroos baan ka qayb galay arooskii markaan ka qayb galay oo cuntadii aan cunay oo arooskii gabadhii la soo gilbiyay gabadhii marka waxay dhaqanka Soomaaliya ay yaqaan gabadha guriga iyada lagu hormarinaya kadib ninkii baa la dhahay orod gabadhii u tag ku diyaar bay tahay gabadhii baa guriga la geliyay gabadhii markii guriga la geliyay hoos baa lagu soo xiray marka gabadha markii guriga waxa ugu hormaray nin waalan markaasoo inuu galay oo busti isku duubay oo meeskiisa saxday أكيد وعند هذا نكاد وقاسوا فرع وزي جبت سجارة وتك أيوة أنا بس نك وانا عزاج وحايس جورة فرية ما حتى يشوف ده إسلام منك برغم إسلام منك برغم عروسك ما موجود يقولين إيش ديارسي بينك هوس كسوكشة نك والله إنه بود توريس بود قبل جق ما يشوف قبل كده مرك دي بقى وسكتي ninka arooska socda imaade gabadha wuxuu sameeyay meeshu busti ku daday buu ka tagay marka marka ninka wuxuu ay xaaska waa ku diyaar bal shaqadaas ka qabsan laakiin uu dansadii gabadhii hoosta galaasin ay baa dhiig buu arkay wuxuu soo booday diyaar kuma fikir jiray ku fikir jiray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka gabadhu way dhaawacantay meena dhiman marka way suuxday gabadhu way dhaawacantay dhiig badan waa ka baxay ninkii dhiigkii wuxuu la kulmay guriga mugdi yahay wada gabadhu waa laga baraala fikir jiray Cabdiraabi sheekadiis aad bay iga qoslisay aan ku xigo qisada Cabdiraabi inta ay u eegtay ninka la gurido bal adi maxaa kuugu la yaab badnaa ama kuugu qosol badnaa inta dunida ku noolay inadaro macaano aniga la yaab muwaay qosol ma tayda waxa ay ugu la yaab badnaa aniga sidaan maxay heeday hore kugu sheegay baa aniga waxaan joog jiray dul hadee magaalo inta badan ahayn duurka baa joog waxyaalaha magaalada laga isticmaal aad uma aqoon jiray Soomaaliya garan maalinka igula la yaabka maday oo aniga hanteedii la hadda maskaxdayda ay qaadan la ahay waxa way maalinka mas'uul ani aan ka soo baxay ay maamada soo dhahay gashay maalinkaas قصة يقول عبد هذا نقرأ دوجو خير قصة بدو كقرية لكن ما نكاس ما نقدر أيها يقولون يا بنت قال مسخوشة محلو سميتنا لو ذكرين ما أنا أقول إن جرد حيري مسخوشة وحاي يقول يا بنت أنت عن قلي أو كسر بحي أي صد هذا كشيء إن أديكوا بالمرة عجيب يقول بالله قصة كوجو قصر كأيه وحالنا صابر هاي وسلامة عاد بكو سلامة وان كاقادة كورة سدو waxaa ay wiilaya badnaa maalin maalmaha kamida magaalada Garissa oo ku ciyaarayna kubad marka wiil yar baa kubadii ku dhacday cunugii marka waan darbaxsheene aniga cunugii mar darbaxsheene cunug kale saaxiibkii darbaxsheeye marka hooyadii in yar biino jirto waxay karinaysay baradho meeshii ku karin jirtay marka cunugii la darbaxsheeyay anigana lahjid saaw ma aqoon wiilku wuxuu ahaa marka dadkan Kenyaanka dadkan tinta adag wahaa kadib hooyadii ay timi markaasay tiri cunugii maxaa ku dishay lahjideedii ugu tiri oo luqadii Soomaaliyeed ku tiri marka dhulka waa ku cusba maadan marka Soomaaliga ma aqoon waxa uu joogaa sindiyo معناه أنا ما أقول مركا وحاكودا حلقين ما دلها نادي هذا واحد لا اسمه كرنيسن واحد نعرف صاحب أنا حلقة أنا دلها تاجر حاجة كويسة بس هورت عنق هذا مركو عودة هاي كان معنا نكلوا نكيد ده أنا لا أسكو عدينا أنا أسكو عدينا ما ياده سنديو تاسع يقول قصر بدنا يا سامر aad ayaad ma santiin daawadayaal sida qiimaha badan ee noo daawatay barnaamijkii ila qosol barnaamijkana wuxuu noqon doonaa insha Allah toddobaadle maalin kasta waanu idin soo gudbin doonaa qisooyin sidaas oo kale idinka qosliya waxaanu idinkaga tageynaa maanta anagoo
ama wax maamtay waxaanu idinkaga tagaynaa annagoo wax baan maamtay aw qisadaadii teer waa digasitaada aw qisadayda idinku daraa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaanu intaa kusoo waaniga ku sheekeynay taada aaw sheekadayda dhimayd maydaan daawadayaasha xusuusin sheekadayda niyow waa sheeko maalin dhow la iiga sheekeeyey anaa la iiga sheekeeyey may hadda taasaa igu qosol badnayd aniga sheekada la iiga sheekeeyey yaa kuwa igu dhacay iiga qosol badnaatay waxay ahayd waxaa la yidhi meel baa xabaal laga qodiyo nin baa la aasi rabay dhintay allah u naxariisto intii dhimatay ninkii dhintay markii la aasi rabay xabaashii la qoday roob baa soo daatay roobka marka waxaa la damcay inay waa meel baa laga galay xabaasha agteeda ah mid baa la diray waxaa la yidhi kolka roobka uu qaaday kac soo fiirinaya xabaashii biyihii galeen iyo in kale xabaashi show kan ku sii socda mid baa uga sii horeeyay oo galay oo xaaqay oo eelkii hagaajinaya eelkana hoos baa loo qodaa wuu galay oo ku jiray ninkii kale meeshii uu soo dul istaagay oo yar qoqoyaan iyo waxbay ahayd uu siibtay oo salka ku dhacay kii kore kii gudaha ku jira cunaha dhab siiyay wagaas ku yiri mar rabbuka buu ku yiri aniga ma كبد كوتب جاكو يلا بيو aniga ma